xuseen barre aad u mahadsan tahay madaxweyne farmaajo oo saaka soo gaaray magaalada Casmara shir hal maalin ah oo madaxda dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea halkan ugu furmayna ka qayb galayay. Ujeedada safarkan wuxuu ahaa sidii loo sii dardargelin lahaa heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee saddexda dawladood ay ku gaareen magaalada Casmara bishii September sanadkii 2018 iyo kulamadii xigay ka dhacay Baxradaar iyo halkan ayuu daba socday. Ahmiyadda ugu weyn waxay tahay in qorshe midaysan oo wadajir ah ay yeeshaan dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea laba si ambaqaado waxyaabihii markii hore lagu heshiiyey. Nuxurka ugu muhiimsan kulankanna laba qodob ayaa diiradda lagu saaray. Kan koowaadna waa danaha amni iyo xasilooni ka dhaxeeya saddexdan dal, iyo qodobka labaad oo ah sidii horumarka dhaqaalaha iyo midka bulshadaba looga wada shaqayn lahaa si wadajir ah. Intaas ayuu ahaa shirkan la isugu yimid halkan maanta lagu soo gabagabeeyey. Muxuu yahay hanaanka iskaashiga cusub ee lagu dhawaaqay ee bariga Afrika mase ku jiraan dalalka bariga Afrika sida Kenya, Djibouti iyo Suudaan? Xuseen saddexda hogaamiye waxay isku raaceen hadda in block ama bahwadaag ay ku midaysan yihiin geeska Afrika oo wax ku ool ah oo xoogan oo danaha gobolkan ka shaqeeya oo iskaashi buuxa oo dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha intaba iyo isu socodka bulshadaba ah ka shaqeeya in la sameeyo. Kuma carabaabi karo dawlad hebel iyo dawlad hebel, laakiin waxaa jirta oo ay madaxdu istustay inay jiraan dawlado iyo dalal muhiim u ah inay qayb ka noqdaan, talooyinkoodana ku biiriyaan. Waxaana la ogaan doonaa insha Allah markii loo gudbo dhaqangelinta rasmiga ah loona daadajiyo qaybaha kala duwan ee gudiyada waxaan ka shaqayn doonaa haddii abeed. Maxay tahay tallaabada xigi doonta kulankan? Sideese loo dhaqangelinayaa qodobada lagu heshiiyey? Tallaabada xigi doonta waxay tahay in gudiyo farsamo la shaqo geliyo oo isku dhaf ah oo dhammaan dalalkan ka kooban iyo kuwa ku soo biiri doona ee lagu xusay warmurtiyeedka inay qayb ka noqon doonaan wada tashiyada laga yeelanayo sidii loo ballaarin lahaa loogana miro dhalin lahaa maxay ahayday isbahaysigan. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu marka heerkaa la gaaro wixii faahfaahina oo qodobaysan oo jadwal leh in iyo qaabkii looga shaqo gelin lahaa intaba in lala wadaago shucuubta kala duwan ee uu saameyn doono isbahaysigan iyo dhammaan dunida insha Allah. Waxaa kaloo ku xusan warmurtiyeedka inay jiraan saaxiibo iyo bahwadaag iyo daneeyayaal ku xeeran gobolka oo runtii saameyn ku leh. Kuwaana waan soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allah in kamara dhalinta hawshan ay kaalin mug leh naga siin doonaan haddii abeed. Waxaa intaas dheer sida warmurtiyeedka ku xusnaa faragelin ba'an iyo tadakul ajnabi ah jira oo ku socday gobolka, gaar ahaan annaga haddaan nahay dowladda Soomaaliyeed aan tuhmayno. Waxaana xusid mudan isbahaysi markii la samaynayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee tiirarka ku ahna waxaa ka mid ah in dawladuhu iska garabsadaan oo meel uga soo wada jeestaan wax walba oo faragelin ah oo ku iman kara. Waxaan rajaynaynaa annagoo ilaalinayno dawlad walba madax bannaanideeda iyo karaamadeeda, haddana si wada jir ah in isbahaysigan uu uga shaqeeyo sidii uu meel uga soo wada jeesan lahaa una diidi lahaa cod dheernu ku oran lahaa wax faragelin ah oo dal ka mid ah isbahaysigan uu ku samayn karo dal kale oo shisheeye inaysan jirin. Amuuraheenna iyo sidaan wax u wada qabsanaynana ay tahay wax annaga naga go'o iyo talo noo taallo, farsamadeeda iyo caqligeedana looga baahan yahay sidii loo sii dardargelin lahaa oo looga miro dhalin.